Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa bismillaahi raxmaani raxiim acuudu billaahi mina shaydaani rajiim waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba ilaahay waxaan idin baryayaa inuu caafimaad idin siiyo waad xanuunsantihiin intiina badan waxaana idin haya xanuun khatar ah oo in dawo loo helo mooyaane aanan xal yeelanaynin kaasoo ah qabiil إلهي قبيلك عافمات هيك سي يا رب العالمين إلهي قبيلك إنك داوي إلهي داوي أحسن إذا سيادك عافسة والله كاس قبيل كاس وحنو قدرين هي وحنو قدرين هي كنسر كل شيء وحنو قدرين وحنو قدرن كاس حنونك وحنو قدرن أنا هذا مو أقول حي الصومالي هذا أنا إلهي هرت عافمات في عنا الله نسي غير عافمات إلهي نقف قاد قبيلك الله نسي إلهي ربي قبيلك نقف قاد يا رب العالمين walaalayaal Soomaali meel aad joogteen ma ilaahay horta qabool qalbigiina iyo qoodiina Allah miday waa idin duceynayaa ilaahay waxaan ka baryayaa mid inuu idin ka dhigo oo idin mideeyo quwad oo idin siiyo aad cadowgiina ku aragtaan oo idinka dhexdiina aad walaalo isu aragtiin oo aad noqotiin dad walaalo ah oo hal meel aabba iyo hooyooda dhalaad isu aragtiin markaasna cadowgana adinkuna aad iska celisaan alla ilaahay waqtiga ayaa itusa inaan gaarayo ma ogi intaa haddan ka gudbo ayaama dhexo dhan waxay ruxayeen magaaladii xamar ahayd oo isu daba mareeyeen in yar baa la dilay bilaayaa kacday xagabay ka dhacday waa abaabul shidan oo meel kasta laga keenay oo la soo kaxeeyey oo la rabo cagaha dad Soomaali inaan ku istaagan meeshay rabaan ha joogaane inaan hal gobol oo magaalada wadanka kamida madax fiican inaysan qabanin wadankaasna hor u socon ayaad arkaysaan marka waxa weeye marka noloshana wad u jeedaan walaalayaal adduunku waxaa la rabaa inaan weligan saa u qarbadnaano u qasnaano suqmaasuq nabad la'aan dagaal aan dhammaan oo cid ku soo hagaagi karin oo hal mashruuc oo aanan helin aan anaga wadankanaga hore uga dhisan cidana maal gashanin anaga aanan waxba samaysan halkaas aan ul iyo aan soo haysano qor oon dasid shaqo kalaba loo waayo oon saa isu qasnay rabaan walaalayaal horta cadowgiina intaa waa inaad ogaataan meel aad joogtiinba xoogaa markay xoogaa mididii saa ugu kirkireen oo si fiican u qalweysa ay xamar ka soo dhaqaajiyeen xoogaa marka hadda galmudug ay u gudbeen galmudug bay haddana wadaadadii de waa abaabul isku xiran oo xamar ilaa halkaa uu isku xiran yahay dad baan kasoo wada shaqeeyay oo gaar ahaan hadda xamar joogaa kasoo shaqeeyay waana imaaraad iyo kenya iyo ingiriis ayaa wada inaanba silsilad saa isugu xiran weeye intaasoo dad ah oo shishe iyo intaasoo kale oo gobol kasta iyo meel kasta magaalamada xamar la dhaha degan jooga ayaa intaasoo dhan silsilad u tahay waxayna intaasoo dhanna u heshiyeen wadanka waana inaanu hore u soconin alla caloosha shaqaystayaalka ayaa naga qabto god dheer godka jilcu la dhaho yaa nooga rida ibidkood bayaan dib loo soo saarin halkaa ku wada geeriyoadaane waan imaan doontaa insha Allah markaan dowlad qabanayno waxaa ku soo haray al-sunna xilli dheer ayay gobolka kasoo talinaysaa hadda ka hor aynan wax ay u qabteen iyo waxay sameeyeen aanay jirinin markii xilligii dambe haddana dowladdan heshiisyada la gadaysa waxyaalo badanaa loo ogolaa xildhibaanaa loo ogolaa waxyaalo si kasta inta la yeelo oo kor iyo hoos la maray unbaa heshiis laga soo saari waayay war intaan qaata maya maalintii yar dambe unbaa si yar ilaahay uga soo qabtay haddana galmudug oo intii ka xoog badan oo intii ka culus ayay haddana shalay baryahan isku diyaan oo gobollo qabsadeen oo saa u wareeriyeen marka horta waxaad ogaatiin ahlu sunna dadka u shaqeynayo iyo dadka jooga oo dhan waa meel kasta dee dadka jooga iyo cid kale ma ahane waa dad wada cawaan ah waa dhalinyaro cawaan ah waxay fahmayaan aanay jirin oo ninkii maanta dhaho qoriga ii qaad ay u qaadayaan war ayaga dhanba horta ma wax lagu shaqaysamaya wax iskood horta u shaqeeya raggii Soomaaliyeed kuma jira miya war xaggee qabteen dadka fiicnaaw war anigu qaadi maa iga tag wadankeena ku duuli maa ninkii dhaha haye malalaya sababtu waxa weeye nin kasta nabadda markay ay badato meel walba qabato gaarto ay badato yaa nin walba halkiisa nimcada ugu imaanaysaa nin walba halkiisa waxbarasho ku helaya nin walba halkiisa ciidan hadduu doono ku helaya nin walba halkiisa jaamacad ku helaya
ma nimcadaasaad ka dabalantiin markaase waxaa rabtiin maantoo dhan inaad balaayo u dagaalantaan aan loo jeedin oo imaaraad ah lacag yaroo laydin soo siiyo waddankiina ku burburiya layidhi lacagta imaaraadka ilaa qiyaamihii xitaa hadduu wado waxay kuu qabanaysa ma jirto sababta waxay tahay waa lacag xaaraan aad kusoo qaadatay dad dhahayana xitaa diintaan naqaana aan wadaadaan nahay oo sidaa u dhaqmaayana wax fiican maaha shalna ayagaa xal ka diiday maantana ayagaa soo dagaaltamaya marka aalusano waxaan dhihi lahaa kolley haddaad heshiis rabtaan horad u qaadan lahaydeene haddana waxba ma rabtaan inaad dadka umaqastaad rabtiine qaska waddanka ka daaya galmudug adinkaa iskale cid kale ma lahan adinkaa u dhashay adinkay waddankeennii tahay adinkaa hadday wax noqoto wax ku noqonaya adinkaa haddaana waxba noqonin ku baaba'aya galmudug dagaal kaga daaya galmudug dagaal uma baahna war ahlu sunna galmudug dagaal uma baahna waddankaas wuxuu u baahan yahay nin garab istaaga oo maantay cadow badan ayaan leenahay ka difaaca nin walba hadduu ninka kale cadow ku noqdo war annagu xageen aadnaa war dadku masuq maasuq badanaa war dadku qabyaalad badanaa waxa dadkaasoo dhan loogu dagaalayaana waa qabiil wax kale ma ahan because dowladdani wax diina ay kasoo horjeedo oo ma aragtay ay dhahaysa ahlu sunna iyo anagu waa kala duwana ayadaaba ahlu sunnaaba ayadaaba dee sunno ah soo maa waxay diin hadda isku haystaan ma jiraan marka hadday waddanka hore u wadi lahaayeen oo dadkan ay xalka ka tali lahaayeen qof walba barwaaqada halkaasi ku gaari lahayd mana oga war ingiriis waddankeena ma lahan war kenyaata waddankeena male war imaaraad waddankeena ma lahan war adinka ayaa iskale waddankeena maalintaad adinka aad oo rabo inuu horumar gaaraba haddaad inta dhexda ka qabatiin aasas u liicinaysaan yaa oo laan curdana weeye haddaan dib usoo yar kacaynaya aad dib noo celisaan soo masiibo maahan soo balaayo maahan soo dhibaato maahan maxaad ka faa'iidaysaan bal waxaad ka faa'iidaysan ii sheega bal ma ilmihiina horumar ku gaaraya war ilmahaaga haddaad adiga kuu ladiyanood waddan nabada geysatay ilmo aad adiga abti u taho adeer u taho oo u tahaa jooga waddankii haye ma gebigood ma calooshadaad ku qaadaysaa haye xagee aadayaan xagee waxbarashadoodii maaye fuujarkooda maaye kontonka sano boqolka sano oo soo socda ayaa la rabaa inay fuujar dadka leeyihiin oo loo balangareeyo laakiin shalay berri unbaad fiirinaysaan berri dadkani kan war ninka hore waddanka u wada waa lala shaqeeyaa khilaaf wax ma taro war khilaaf wax ma tare khilaafkan iska daaya soomaaliya alla soomaaliya ilaahay xanuunka in ka qaado wallaahi xanuunka idin haya diin ma ahan xanuunka idin hayaa diin ma ahan xanuunka idin hayaana wax kale ma ahan waa xanuun idin hayaa oo ilaahay idinka qaado ilaahay casaa u jallin oo ka qaado mooyaane cid kale in ka qaadi jiran kari waa qabiilka waa inaad isku garatiin oo isku fahantaan oo ninaan aabba lahayn ma jiro oo ma aragtaan cidina dhalin ma jirto laakiin nin walba ninaa dhalay qof kastana way ogtahay ninaa la dhalinna maanta ma jiro laakiin dhibaatada jirtaaba waxay tahayba aadnaanba u socon cidaad u socotiin iyo cidaad wax idiin ay cidaad garanaysan aysan jirin war walaalayaal ilaahay ka cabsada war maalinta qiyaamo waa laydin weydiinayaa war sidaan isin ma ahan war lama noolaa doono war nin noolaa doonaa maanta ma jiro war nin adduunkaa sii joogayaa ma jiro war nin adduunkan ku sii waarayaa oo xoolo iyo maal kasta ood heshiin waa laynka wadayaa camalkiina ayaa idin raacaya waxaad soo samaysateena idin raacaysa waxaad xabad soo rideen iyo ninaad qabiil iigu kaalay tiri iyo nin kula dagaalamay iyo gobol aad qabsatay iyo madaxweyne aad u gaftay iyo gobol aad waxaasoo dhan kuba raacayaan yaa cilmigiinu waa hal bacaad lagu lisay wax alla aad fahmaysaan ma lahan jaahiliinta idin dhaanta ee ilaahay waxaan inka baryaynaa rabbiga raxmaanka ah waddankan nabad ha nooga dhigo dhibaatada ha nooga qabto ilaahay baa wax qaban kara bini aadan wax ma qabto soomaaliya iskaashada meel aad joogtiinba cadowgiinana u istaaga faa'iido aad leedihiinna maba jirto intaadna qabiilkan iska saaraynin qabiilkan iyo halkaa dhuntaad waxaad marisaan war haddii saxan cuntaa lagu soo hoos dhigo waad ka dhargeysaa mid labaadna uma baahnid noloshana waa intaas berri allah ku gaarsiiyo markaad maanta marka waxaad cunaysiin waa wax saxan ka badan guri wax la egaad cunaysiin halkii maalin
miinis waa lacag aad u fara badan baad raadinaysaan waxaad meelaad geynayseen aan la aqoonaa raadinaysiin war waxaasi xukunka nabad ku soo gala doorasho keensada doorashada soo gala aqoontiina la imaada waxaad wadanka u keenteen keena waxyaalahaasoo dhan waa laydin dooranayaa cid idin diidaysa male war dadkan soomaaliyeed qof wanaagsan maba diidaanba laakiin qof wanaagsan oo hogaaminaysaanba jirin haddii ay jirtana balaayo unbaaba dhuunta ugu jirta oo hore uga wadala oo ka shaqayla oo ka socodsiila marka maxaa la samaynaya wax la samaynaya anigu ma garanayo ma garanayo runta ahaantii dad iyo meelaa u socotiin meella in kaga wacayna ma aqaana ani ma fahmin ani waxaad ka wadaan war ilaahay galmudug ha nabadeeyo war ilaahay wadanka naga nabad ha nooga dhigo war ilaahay cadowga nagu soo diilay ee shisheeyaha iyo kan soomaalida oo gudaha jooga ahlu sunna ha ahaadaan iyo mid xamar jooga ra-iisul wasaare ha ahaado iyo mid kale ha ahaado wax allaala wuxuu rabaa ilaahay cadowga soomaaliyeed meel uu ka jiraba dal iyo dibad mid joogaba meel uu ku absitarsadaba ilaahay naga qabto qalbigiina iyo indhihiinan isku xirin wax shaqaynaya ma jiraan haddii aadna qalbiga ka fiirin qalbiga aadnan ku ogeyn waxa jira indhahaadna aadnan uga jeedin aadnan dadkan aadnan iska qaban waa weli ilaa adinkoo kalaa cid kale ma ahan dad kale leedma waa nin yaro adinkoo kala weeye oo sidiinoo kale xaninyaan leeyahay xaniyuhu ma wax dadka lagu xadaa ma dadkaa lagu dhacaa yaa wadankaa lagu burburiyaa miya nin aniga bal ninka aniga xaniyo sheegana maanta wadankaaga aniga u gafay dhaho ma ka yeelayo xaniyahaaga ilaa cadaabaan leeyahay balaayo ku xaniyees wadankaygan maxaan u sheegtaa wadankayga waa qurux wadankayga aniga difaaciisaan u joogano meel kastoon joogaba qofka hadal dhaxan ka sheegaana jeclayn qofkii xadayaana jeclayn qofkii u gabayaana jeclayn qofka dhibaataynayaana jeclayn ilaahayna waxaan ka baryaynaa inta wanaagsan qalbigeeda allah mideeyo soomaaliyana runtii xoreyn cad ayay u baahantaan ugeed lagu soo gadban qabiilkaasna intuu jiro awl waa jiri qabiilka weligoodna qabiila soo wadi jiray laakiin hadda mid waxayba keeneenba oo korkaa layska fiiqanayaa korka dushay kaa fiiqanayaan bismillahi raxmaan raxiim laba ninoo isla dhalataa mid walba oo maaragtay ii sheeg saa kuu kala hoolaya war ilaahay naga bixiyo ilaahay taqwo iyo midnimaan inkaga tegay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya nabad